dalka waa gadayna dadka waa dilayna diinta waa dumayna xilka diidi mayno hanti ka dayri mayno dagaalna qaadi mayno difaacna geli mayno war ma heesi aqaanee hadalkayga dhegaysta hadal horahanka noognay warkar haytaniyow war heesihii waddaniga ayaa naf laga jiri xildhibaan waa ku habboon tahay degdeginaysu hay-adihii la diyaarsho xilka loo halabeeyey shaqadoodii iyo hawsha heegan waa u yihiin dadkuna maamul hoggaansho danahooda hagaaja hamuun waa u qabaanoo anigaa huba taas adeerow yaa kala heegay oo midba koone ku haysta dastuurkaa weli qabya war dadku maalin kasta la dilaaw dastuurkan dilika dhimaatiraali lisugu haya diidiyo aryaa adugu warkaad sheegay Shariif Xasan u sheeg annaga xabad nagama gelin war aniga dhegaysta tanadii ugu dambaysay oo runtahay anigu aan idin sheego ila tali walaal ay tiri asawir aan kula taliye tuuladaada noo sheeg walaal warkaa tuulu leeyahay naga joog baan ku yiri dhamaystay dalkan dhagaysta qofkaan loo baasaboor lahayn oo haddii xaalku xumaadaan meel ku carar lahayn inuu istifaaco ku asban yahay marka anigu waxaan idhi inaan kaa haajiriyo hayaankaaga socdee dalkaygow lama huraan adun baa ii hantiya alla ii heli karee inaan nabad kugu harsado ayaanu amuu qabaa dadaalkana kama hadhani arwa runtaa dhegayso how hilib daafa horteerayaal humburuuq waa ka hooya adeer war waxaan maqli jiray huunfay sideeday hilbaha kor ula haadaan hawaday ku feenteen wixii deeq la soo helo waradahaada sagay saman malaynaya adiga ana dhulkan joognaay war dad diyaarad fuulama kiin sheegi lankun war ma sheegine wuxuu ku leeyahay hilib meel banaan yaal huunfayna waa ula haadaa banda feera ku afweyna haddaad huufta meel ma fadhiisatido war magaalada muqdisho waa nabad waxay doonaanba mucaaradku ha sheegaane cayaartii xalay dhacday oo sida nabaddaa ku soo dhammaystirantay oo madaxweynuhu ka qayb galay oo malaayiinta qofood isugu timid ayaa markhaati ka waxaan maqli jira cayaar haddaan wax ku jirin xaacawadii loo tumaa hertaxaa lagu diiday war waa horumar la gaaray garoonkana leerar waaweyna lagu xidhay isbartiibada haddii leyr lagu xidha ununka kulaylaan la buca tagnay war muqdisho hadday nabad tahay garoommadii xaafadaha ku yaallo ciyaalku ku ciyaari jireen aaway warkii canshuurdii waa lagu cayaar karaniyahow sakawaad maad ka wadaa war muqdisho hadday jugu ka jirto maxaa loo maqli waayey inuu beenna jiirsiinayo jiifka nugu gaaday ninka yidhi xalay jibindhacdoo ciidda kala jeexday ummadduba hadday dhegajigtoon juuq la maqashiinin miyaynaan u jeedneen dhulkay meel ka jawrarisay war ninkan qarxiisoo baataa ma ogo war may baa dheegi jiray lankun isan aragaasaan geeridii rasuulkana aad ma oga dheegi jari lankun waaqaa hadda muqdisho ka teegan maba ku warqabooba ohe mawliidkaa la xusi lahay rasuulka marka reed abwaantima caddesa ilaahay egnaariisa aman dheer dhimidan aan gobiyohay wal jiilka hatiroogi la hadalniyow abwaantima caddesa inan gobyido waryaadhahen anigu warkiinna garan maayee somalilan jabhad baa ka dilaacdayniyow yaa kuwaas ayaa kaaba jabhadahe jabhadmaa jabhadu ka dilaacda warna dhegaysaniyow anigu dhowdhowdaada garan maayee jalan baa duurka galay qaajaa ku raacday warniyow waad nigu gafaysaa naga joog jalan laydhaahdo caarre ayaa hawdkaa burco mulcayeey yaa minow raba ha ku bulacyeeyo xaa noogu jira marka waxaan leeyahay jalan caarre labada daarood midun ku darsan ha isxakamin meele aryaadhaha jenaraal caarre allahow naxariistee caarraha ninkaanu sheegaa waxaan dhihi lahay lamada laan mid ku soo bir hanoo daara mulacayaynine warnimayahow xabsigii jigjiga ku yaallee loo bixiye jeel ogaadeen arrin mucjiso laha ka dhacday islaan ninkeeda lagu xidhay ayaa muddo 4 sannadood ah waxay geenaysay cunto subax walba maalintii u dambaysay oo dadka dhan laga soo daayey ayay carruurteedii wadato waxay istiri aabbaa la soo daynayaa maantay dadkii oo dhan markii laga soo daayey ayay ka dhex weysay ninkeedii war aaway hebelay tiri saacado badan markay meesha taagneed ninkii cuntada ka qaali jiray ayaa u sheegay in ninkeedii 3 sano iyo bar ka hor dhintay wuxuuna yidhi cuntada aad keento waxaa cuni jiray taliyaha xabsiga waa ceeb fashaxaartaas war adeero muxuu odhan waayey almarxuum khaldaan warnimayu ree jigjiga waxyaabaha soo baxbaxaya markaad fiiriso qiyaamihii bay joogeenoo adduunka kula kalmeena ilaahay baa ka qabtay qoladaas warshaalkan leeyahay hadda waa la xihay cabdiilay laftiisa in lagu xihay ahayd warba jirgax ayuu ku ciyaaraya jeelka maye murgux oo ku dheela war qowdhanowna daaw war ma hayside qalbi dhagaxa hargeysa lagu soo dhoweeyey wareedhahay war ma haysaane dawladda imaaraadku kiiniyay diyaarado dagaal siisay
siisaa la yidhi yaa kenyana ma sida naloo dili lahaayaa dayuurada loo soo siiyey war shabaabay kula dagaalamayaan baa la yidhi warkaani shabaab maroogo imaaraad hoob uuso daacad eye may unanin sii waayay diyaariyaalku unila dagaalamo fadnay war qadar annaga maxay diyaarada dagaal noo siin weysay war waddanka xuduudihiisa xirtay waa mosambiik oo annagu xuduuddeenna maa xiranno ha dogonkun walba moog laankii huduudilay booqashan sadonaad wal asileeniyow war annaga niyow imaaraadku caanaboodho khalliyun bayna siiyeenay maxay diyaarada noo siin waayeen caanaboodhadaas inka filanaati idiin haatihaayehe faysal cali waraab wuxuu yidhi sacuudiga ayaa naga hortaag in ixtiraaf aan helno sacuudiga ma ingiriisku sheegi jiray u maleeyey war wiilkii gabadhii adeerkood la gubay way hadleen waxayna yidhaahdeen qurunka iyo qabyaaladda jacaylkeennaa ka weyn war culummadii booqatay oo sheegay baadil in lagu gubay ninkaas war lanka waaba wal duugay may qabuuraha booqashanka kaseedana yaa maya ehelkiisay booqdeen waryaadan ugu kala wado meesha markaa waala jirteena la soo gaaraya waxyow alaadaa waalan waryaa adinka waray dirin war ii qabo cabdulla iga tag ishaadu fuut ha u dhammaatay